العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكل كيني تضباط إنه كيف إذا سنة إنه فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر الدرير فرصة ونسية أهين سؤال ويدينه سؤال شكوبات تضباط كان نسوق على الشيخ محمد وحيلا ذهي قبل بسوق قرطي هدي أنا صومن دقيقة كهر أفرك أنت أنا قرحت العين بيجي عادة عن هلا ما أنت صون كيدو محون قرية سؤال شلبات حلي قفك سوق قري صلاة ذهبين كيلة كذا الله يقانو تهجد كما صلاة الليل كا بشرط بقى إن رجعتها نلا ديرية قردة نلا ديرية سوى لقابين كرا قردة يجي رجعتها بقى سؤال صدحات سائل كسوق قري حلي هاي تدبا جرا iyagoo salaada ku jira guntiga dheereeya oo shulaha dhiga ama quraanta dhaafiya siiba ragga salaadaas iyo guntiga la dheereynaya wax ma isyeelayaan maxaad se ugu nasteexayn lahayd. su'aasha afraad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay qofka dhinta hantiyo xoolana ka taga haddii la doono hantida in saka laga bixiyo ma waxa loo shardiyaa inay dadkii xoolaha dhexlaya ay waafaqaan mise inay wada waafaqaan waxba looma shardiyo marka sakada laga bixinayo qofka dhintay maalkiisa. su-aasha ugu dambaysa su-aalaha shantaynu israacinayno wuxuu leeyahay qofka soo qoray saa'ilka soo qoray marka qofku istaahirinayo ama gabadhu ay dhiigagii ka maydhanayso ama jinaabadii wax ka mida maaragta laga maydhanayo ma shardi baa in lagu dahaaro qaato biyo iyo saabuun mise biyo keliya ayaa ku filan. شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد قفكو روح دمركا أهي مركا أي صوبيسي صوم كيد وكا صحيو waxa shardi ahaa inay daahir tahay oo dhiigii caadada iyo kii dhalmada labadaba daahir ay ka tahay. haddii dahaaradaas la waayo soomkeedii shuruuddii uu ku ansixi lahaa baa laga waayey, sidaa daraaddeed ma ansaxayo. inay soonto soomba kama ansaxayo. markaa qorraxdii oon dhicin haddii uu ka yimid maalintaas iyada ah soomkeedii mu ansixina way qallaynaysa. dembina kuma laha oo waa wax awooddeeda ka baxsano way iska cunaysa. su-aasha labaadee sheegaysa salaatuleylka waxa la akhriya ama qur-aanka la akhriyaya intuu la eegaanayo iyo tirada ragcadaha midna ma xadidna. salaatuleylka qofku intuu doonaa buu tukanayaa, midhun buu u dambaysiinayaa. salaatu leyli mathnaa mathnaa faidaa khashiya axadukum الصubxa falyuutir birakcatin أو فليصلي بواحدة توتره على معنى الحديث. صلاة هبينك والله بالله أبو النبي صلى الله عليه وسلم متكين مركا وكعب صدواق إنه بريو هل ركعة يتكريا ومركليا وقد جيس. هذه النبي عليه الصلاة والسلام وحايسه كوبية وأبو تكن شري سيدا عايشة كوشك تحديث كصحيحة، لكن علماء الإسلام كو waxay leeyihiin kaas ficilkiisii waa marka qowlkiisa la eego qofba intuu karaabuu tukanayaa. kolka la eego qirada iyo qofku waxa uu akhriyay qofba waa intuu karo. nebigu u dheerayn jiray sala allahu calayhi wasalam qirada habeenkii qur-aanka uu akhriyayo. waaba laga yaabaa daynaynaan inagu ma kari karna intuu akhriyay nebigu, laakiin qof waliba inta awooddiisa ah ayuu qur-aanka akhriyayaa. ee qur'aan xadidanoo jus ah ama jus barhkii ama intaasoo baqro ma jirto. inkasta oo dadkii salafka ahaa ama culimmadii naga horreeyey cibaadaysan jiray ay ku dadaali jireen inay hal mar dhammeeyaan qur'aanka bisha ramadaan. su-aasha saddexaada sheegaysa qofka guntiga dheereeya ee weliba ragga ah salaadiisu ma ansaxaysaa. wuu jiraa xadiid nebiga ka soo arooray ama laga wariyey oo sheegaya qofka musbilkaa inaan salaadiisu ansaxayn, oonu ilaahay salaada ka aqbalaynin qofka dheereeya
marada uu xidhan yahay ee ragga ah xadiidkaasise waa daciif sidaa daraaddeed culimmadu waxa ay ku tegeen in qofkaa salaadiisu ay ansaxayso isaga oo gef ku dhacay salaaddii way ka ansaxaysaa laakiin wuxuu ku dembaabay maradan uu dhulka jiidayo ee uu markaa labada kuraamood hoos mariyey markaa gefkaa wuu ku dhacay oo waa dhinaca inuu ka toobad keenaabaa waajib ku aha uu saxo salaadiisii way si ansaxaysaa su-aashan afraad ee odhanaysa qofkii dhintay ee seke lagu lahaa marka seke laga bixinayo dhaxlayaashoo dhan ma shardibaa inay raalli ka noqdaan maya waxba kama ahay qofka maalka shardi umaha taasi qofka maalka gacanta ku haya ayuunbaa ka bixin doona deyntii nebiguna wuxu uhi salى اllahu عalayه wasalam fadaynu اllaahi axaqu an yuqضى deynta ilaahay baa ku habboon in loo degdego oo loo dhaqsado oo qofka dhintay derajadiisa ma gaadha buu nebigu uhi ilaa deynta laga bixiyo marka waa loo degdegayaa dad kala maqan iyo waraysigoodii waxba la sugi maayee waxaanay dhaxalkaba kama mid aha intaan la dhaxlin waa in lagu dhaqsadaa markaa dadku inay waxba ka wada raaliyiin shardi maaha qofka gacanta ku hayuunbaa ka bixin doona wax cid kale leedahay weeye su-aashaa shanaadee sheegaysa qofku markuu maydhanayo ma shardi baa inuu saabuun isticmaalo maydhiga waajibka ama waxba shardi maaha wuxuunay ka mid tahay waxyaabaha udgoonka iyo wanaagga keenaya oo rasuulku sala allahu calayh wasalam dumarka markii uu la hadlayey caadada iska nadiifinaya inay cadar xagga hoose u isticmaalaan miski la idhaahdo ayaa uu nebigu farayuu u sheegayey marka waajibku wuxuu ku dhacayaa wixii nijaasana qofku inuu jidhkiisa ka jaro biyaha cadna uu ku maydho intaasaa ku filan saabuuntu waa waxyaabaha kamaaliyaadka ah ee maydhiga wanaajinaysa iyo cadarka iyo wallaahu aclam jasaaka allahu khayr wbaaraka allahu fiik sheekha ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo su-aalahan soo socda waxay isugu jiraan cibaadooyinka iyo mucaamalaadka wuxuu leeyahay saa'ilka su-aasha koobaad soo qoray waxaa dhacday buu yidhi waa ruux dumara sacuudigaanoo jooga baan u baahday bay tihi inaan xajka tago waxba maan xidhan xajkiiye makaan iska galay waxaa la ii sheegay bay tihi inaan masjid caaisho tago tanciim oo aan cumro soo xidho cumradii baan soo xidhay xilligii xajka markii la gaadhay dadkii un baan iska dhex raacay waxba xaj baan xidhan bay tidhi kadib waxay mushaekhdii iyo culimadii ii sheegeen in layga doonayo anigana waxa ii goonaa bay tihi fiisi horaan u noqonayo 3 maalmood aan ku soomi lahaa xajka ma soomin markii dambena xanuun baa laysku kay dabageliyo soomba imu suurto gelin marka xajkaa waagaa sidaa noqday maxaa sheekh xukunkiisu noqonayaa su-aashu way dheerayd haddaynu soo ururino su-aasha labaad wuxuu leeyahay qofka soo qoray na soo weydiiyey qofka isagoo salaad tukanaya maqla salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam miyuu ku afraad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay haddaan si celaysan u celin karaa sixir kala iibka miiqaadkeedii muhiima su-aashan kale ee iyaduna odhanaysa qofku hadduu alaab iibinayo oo dadka uu kaga iibiyo sicir kala duwan maxay tahay sababta sicirkaa kala duwan uu u sameeyey baa la eegayaa hadday tahay axwaasha way iska bannaantay haddii laakiin ashkhaasta ay tahay maya axwaasha waxaynu uga jeednaa dee sicirku marna hoos buu u dhacaa marna kor buu u yaro kacaa maalmo alaabtu way qaaliyowdaa maalmana way jabtaa marka maalmihii ay qaaliga ahayd qofka ku soo beegma waa xaalad gaara kii maalmahay jabtay taasi waa wax dhibla maaha laakiin hadduu dadka sidaa u eego oo ka yaro badowga ah ama yaro miskiinka ana cirkaa uu ku geeyo ka reer magaalka iska dhicin karayana uu hoos uga dhigu idhaahdo kan la heli kari maysid taasi waxa weeyaan waa gef wey shakhsiyaadkiibuu kala saaray isagoo ka faa'iidaysanaya daciifnimada qofka iyo miskiinnimadiisa taasi sax maaha waxaana ka iman karaa waxa la yidhaahdo khiyaarulkhabni khiyaarulkhabni waa qofkii la khiyaameeyey khiyaar buu leeyahay oo nin baa wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xagga iibka aan ku yaro fiicnayn markaa wuxuu ihi marka aan wax iibsanayo waa la isuldaaraa waa la iga faa'iidaystaa markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku uhi laa khilaaba undheh markaad qofka wax ka iibsato khiyaaba ma jirto undheh haddii ha dhowto markaa wax kaasi noqdaan celis baad xaqu leedahay in lagaa celiyo alaabtii markaa dadka waa inaan dacfigooda laga faa'iidaysanin
waxase dhici karta qofku sixirkii caadiga ahaa uu wax ku iibinayay ee alaabtu magaaladana ay ka joogtay inuu dadka qaarkood oo ama saaxiibada ah ama masaakiina inuu u dabcin karo tala diidaya waa qaaliyeyntii iyo ka faa'iidaysigii dadka qaarkood oo u naxariisanaya ama muxaawaad ku samaynayo uu dheefsiinayo wuu u dabcin karaa marka qofku waa inuu ilaaliyo cadaaladda suuqa iyo sicirka caadiga ummadana wixii dhib ku keenaya uu markaa ka ilaaliya wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh maxamed ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro su-aalaha aynu kusoo khatimi lahayn kulankeennan wuxuu leeyahay saa'ilka su-aashan soo qoray waxaa jirta meheradaha qaar in alaabta taalo la isticmaalo kadibna la iibiyo masalan sijaayadaad iibinaysaa waa isaga tukanaysaa sijaayadaha inta lagaa iibsanayo hadhow marka aad u hesho iibna waad iibinaysaa alaabta taalo sidoo kale ama kitaab baa yaallo intaad sawirto dadka uga sawirtood ka koobiyeysaad hadhow iibinaysaa iyo wax la mid a alaabtaad isticmaashay haddana dib aad u iibisay dadkiina uga dhigtay inay cusub tahay xukunkeedu muxuu noqonayaa sheekh maxamed su-aasha labaad wuxuu leeyahy saa'ilka soo qoray su-aal dheer ba haddaynu soo ururino waddannada gaaladan joogaa buu yidhi bangi ayaan gaadhaan u baahday bui marka bangi baan u tegey bangigii gaadhigii buu soo iibsado 20 kun buu soo siistay buuhi anigana 21 buu iga siiyey deynna waan ku bixinayaa 21 kaasi inta aan deynta iska dhammaystirayana gaadhiga anugu kuma qorina bangigaa ku qoran maalinta shilinka ugu dambeeya aan bixiyo ayaa gaadhiga magacayga lagu soo saaraya arrintaasi ribo miyay soo gelaysaa su-aasha saddexaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay inan baa ii dhashay markaa ma shardi ba inaan 2 neef u qalo mise 1 neefaa ku filan oo caqiiqadii iyo waqlashii 1 neefa maaragtay kifaaya ah su-aasha afraad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray ma bannaan tahay ilkuhu hadday ceeb leeyihiin iyagoo raaran iyo ama iyagoo yaro fool xun in la qurxiyo sirig lagu xidho la xidho arrintaasi ma dembi baa mise way iska bannaan tahay su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray meheradaan wax ka iibsaday aan la tacaamulo ma ii bannaan tahay inaan ka qaato lacag hadiyadoo abaalmarina macmiil wanaagsan haddaan ahay oo aan mar walba wax ka iibsanay mararka qaar bay abaalmarin waxay siiyaan iyagoo dhiiri gelinaya arrintaa qaadashadeedu maxay noqonaysaa sheekh maxamed waxa la iibinayo ee alaabtaad iibinayso haddii la iska garanayo oo la isticmaalo oo markaa aada sii iibinaysana dee la ogaya wax la isticmaalay inuu yahay waxba dhib ma leh laakiin shayga qofka kaa iibsanaya uu u haysto inaan la isticmaalin bacdi uu leeyahay cusub yahay adiguna aada uga dhigaysa waxaan la isticmaalin sax maaha waa qish baa la yidhaah talan gaadhiga oo kale gawaadhidan sikinkaa aynu iibinayno dee qofku waa la wataa waa la ogyahay waa la isticmaalaa marka iyadoo kolba meel la geynayo o la isticmaalayo lagu muraadsanayaabaa lasii iibinaya taasi dhib ma laha laakiin alaabtii markaa dukaanka taallay sida sijaayadaha la sheegay oo kale adigoo isticmaalay oo qofkii u haystay inaan la isticmaalin ay cusub tahay ama waa inaad u sheegtaa ama waa inaad ka daysaa ta markaa xaaraantii waa taas weeye su-aasha baanka kolley baananku way iska dhibaato badan yihin xeeladaysi badanina wuu ku jiraa markaa qofka soo qoray waxaynu kula talinaynaa culimada ka agdhow inuu ula tago baankani ma kii ribada ma kii muraabaxada xalaasha awadayba inuu culimadaa weydiiye ayaan ku xawili lahaa su-aasha la xidhiidha ilmaha yar ee dhasha tirada loogu walqalaya adhiga waa intee gabadha waa mid ama inanta yare dhalata wiilkana labaa loo qalaya siduu rasuulku ku caddeeyey sala allahu calayh wasalam xadiidka saxeixa ah mar hadduu xadiidku sugan yahay waynu qaadanaynaa xikmadda ku jirta wallahu aclam waxay leeyihin culimmadu waxa suuragala dee ilmuhu markuu dhasho waa lagu farxaa markaa farxaddii ayaa lagu qaadanayaa walqashan laakiin wiilka iyo gabadhu waa lagu sii kala farxi ogyahay oo inta badan dadku wiilka aada ugu farxaan sidaa daraaddeed dadka imanayaa bata iyo dadka ciyiga doonaya marka sababtaasaa loo yidhi wiilkii labaha laga dhigo maadaama dadkii imanaya martida ahaa iyo kuwii soo booqanaya ay badan yihiin haddii mid qura wiilkii loo qalana way ku filan tahay oo qowlkii nebigu hadduu ahaa wiilka laba u qala ficilkiisiina waxaa dhacday inuu mid qalay oo sida ibnu cabbaas uu warinaya xadiid sugan oo saxiixa ama xasana wuxuu ku yidhi xasan iyo xuseen markii ay dhasheen rasuulku neef buu u qalay neef adhiya
ayuu walqashooda ka dhigay marka taasi waxaa halkaa ka cad inuu hal neef ku filan yahay qofkii aan kari karaynin labada neef hadduu kari karayana waxa fiican inuu laba ka dhigo wiilka su-aasha ah ilkaha iyo qurxintooda ilkaha iyo jidhkaba haddii qofku wax dhaliila ama nuqsaana ama ceeba uu leeyahay waa la ogol yahay isqurxinta faruur buu leeyahay wuu hagaajin karaa ilkiiba aada u kala tagsan wuu ururin karaa oo wuxuu ku xidhi karaa wixii dhakhtarku ugu hagaajinayey marka jidhka wixii laga bedelayo ee ceeb iyo dhaliil ah ama nuqsaanahee ku jira waa la ogol yahay waxaase la diidayaa jidhkii oo caadiya waxaa la yidhaahda kabadbadiska iyo qofku qurux cid kale inuu raadiyo taasaa la diidayaa markaa siligaa waad ku xidhi kartaa haddii ilku ay raaran yihiin ama ay ceeb leeyihiin su-aasha u dambaysa ee la xidhiidha hadiyatulcummaal dadka shaqaalaha ah ee sharkada soo dirteen ama shakhsiyaad soo dirteena alaab u iibinaya qofkii uu ka iibinaya inuu wax u saaro ama uu wax siiyo sax maaha waa nooc xatooye ah waxaa dhacaysa inaanay inta badan la ogeyn dadkii soo diray qofkanina uu uga jeedo qofkan macmiilka ah soo jiido oo yuu meel kale tegin marka waxaa dhacaysa iibkii inuu qalloocdo tartankiina meesha uu ka baxo khiyaamadiina si yar yar ay u siqdo qofkii had iyo jeer wax loo saaraya alaabtana inuu eegto un cid u saarta oo idhaahdo haddaanad intaa ii saaraynin waxba kaa iibin maayo ama mashruuc ku siin maayo waxyaabo imika aada u badan weeyo foolxumo ah shayga xaaraanta la yidhahdana astaanteedu waa qarsoodiga soomaalidu waxay odhan jireen xalaal iftin baa la qashaa haddii imika aada u sheegto ciddii ku soo dirtay oo aad tidhaahdo kanaan ka soo iibiyaa intaa in la eg buu ii saaraayo ka warrama waxay ku odhanayaan ha qaadanin dee mushahar baanu ku siinaaye ama mushaharka qaado ama waxa uu ku siinayo dilaalka ah ku egow looma ogola waa wuxuu qarinayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi xadiidkii saxiixa aliithmu maa xaaka fi nnafsi wa karihta an yadalica annaasu calayh calaa macna alxadiid dembi waxaa la yidhaahdaa wixii qalbigaaguna uu ku degi waayo dadkana aad ka qariso marka arrintaasi waa mushkilad bay ku tahay hadda iibka iyo mashaariicda la bixinayo marka qofku wixii mushaharkiisa ha ku egaado alaabtanna wixii la isku ogaa ha ku soo iibiyo iyo wixii qoraalka had iyo jeer lagu samaynayo rasiidhada lagu qoraya wax cad oo dhan walba la isla ogyahay waa inuu yihi wallahu aclam jazaaka allahu khayr wbaarak allahu fiik ilaahay subxaana wa tacala sheekha miisaanka xasanaadka u saaro innagana rabbi subxaana wa tacala inagu anfaco aad iyo aad baad umahadsan tihiin wajazaakum allahu khayr subxaana rabbik